bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan casharkan kaga hadlaynaa sida flash looga xidho kombiyuutarka. sidaas daraadeed waxaan samaynaynaa haddii ilaahay idmo flashtan ay ku qoran tahay maxamed ayaynu ka xidhaynaa in kombiyuutarka ay soo gasho. talaabada ugu horeysa aynu qaadano waxa weeye waxaynu taabanaynaa Windows plus R kadibna halkaas waxaynu ku qoraynaa click edit kadibna enter. yes baan leeyahay. waxaynu dooranaynaa HK local machine kadibna waxaynu ka dooranaynaa system kadibna waxaynu ka dooranaynaa control set waxaynu ka dooranaynaa maxay service kadibna waxaan raadinayaa meel ay ku qoran tahay USB store. USB store waatana kadibna waxaan dooranayaa start ayaan double click siinayaa. number 3 meeshan ay ku qoran tahay waan ka bedelayaa, waxaan ku bedelayaa number 4 si aan disable uga dhigo USB flash computerka. kadibna waxaan sameynayaa okay, waan iska kansalayaa, waan refresh gareynayaa. kadib waxaan ka saarayaa USB-ga flashta igu jirta computerkayga, dib baan u soo gelinayaa. hadda waxaan eegayaa inay soo qabsatay iyo in kale. saad u jeedaan ma aysan soo qabsan. marka aad ku celinaysid waad sideedii kusoo celinaysid si lamid ah baad rig edit tegaysaa kadibna yes baad leedahay. waxaad bedelaysaa meeshii 4 ka ahayd waxaadna ku bedelaysaa 3 kadibna waxaad leedahay okay. hadda markaynu dib uga saarno oo ku celino waa inoo soo qabsatay. saa u jeedaan flashta maxamed waa inoo soo qabsatay. waxaan rajeynayaa inaad la dhici doontaan casharkan. waana mahadsantihiin. fadlan haddii aad ka heshay casharkan ha ilaawin inaad like, share and subscribe tiraahdo si ay u arkaan asxaabta kale.